dabkan oo ka kacay guri ku yaala xaafadda Sheedaha ee magaalada Hargeysa ee degmada Ibrahim Koodbur kaasoo sababay dhimashada 4 carruur oo kamid ah qoyskii ku dhaqnaa gurigaasi waxaana dhaawac soo gaaray hooyadii dhashay carruurtan oo dhaawaceeda lagu dabiibayo cisbitaal guud ee magaalada Hargeysa qaar kamid ah dadkii la deriska ah gurigan dabku qabsaday ayaa sharaxay qaabka ay wax u dhaceen xalay labadii barkii habeenimo ay gabadhii guriga lahayd qeeladeedan u maqlay waan ku soo yaacnay guriga albaabkeegii markaan sida isku soo taagnay saddexdeeda dhowrkii qof ugu soo horeeyay ayuu ololkii naga hor yimid markaas aan kulkaan geli kari weyn haddana xagga daaqada u yaacnay daaqadii baan ugu soo fujiyay markaa daaqadii wadiga arkay mugtay aan soo fujiyay magaras daaqadiina haddana ololkii baa naga hor yimid markaa musiibadaas adeer meesha ka dhacday dhibta afar qof baa ku dhintay meesha afar carruur ku dhintay hooyadna soo wax u gaadheen baa dabkiiba iyadana wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dabkani ka kacay korontadii guriga ku xidhnayd waxaanu xusay in baadhis lagu hayo waxa dhacay shil naxdin leh waxa xalayto guri ku gubtay oo dab qabsaday afar carruur iyo hooyadood afartii carruur ahayd way dhinteen meydkoodina wuxuu yaalaa iminka halkan meydka ee cusbitaalka Hargeysa hooyadiina waxa lagu daweynayaa cusbitaalka oo waa dhaawac shilkaas waxaan markii ugu horeysa u tacsiyadeynayaa qoyska ay ku timid geerida naxdinta leh ee ay ka dhinteen afarta carruur ee walaalaha ah ilaahay samriye iimaan ha ka siiyo wax khayr qabana ha ugu bedelo waa qadar rabbi oo dhacday dab buu ka kacay shilkaasi dabkaas wixii sababtu ahaana waa la baarayaa marka la baarana sidii sharcigu ahaa nidaamkii sharci baa la marin doonaa Khalid Ibrahim Abdi RTN TV Hargeysa